axdiga baarlamaanka oo noo degsan ama shuruucda dalkaba qaybta baarlamaanka khusaysa waxay leedahay haddii gudoomiyaha baarlamaanka isaga uu xilka uu ka dago ama ha ku waayo eedeyn ama ha ku waayo sabab caafimaad ama isaga laftirkii hadduu u bareero inuu istiqaalo uu keeno meesha uu ka tago xilkiisa waxaa si automatically qabanaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka isaga ayaana dhammaan mas'uuliyadii uu hayay xilkeeda qaadaya isla markaana ilaa gudoomiye cusub laga soo doortane isaga ayaa shir gudoominaya sidaa iyo si lamid ayaa haddii gudoomiye ku-xigeenka koowaad isagana iscasilo ama arrimaha hadda uu ku waayin karana xilka si lamid ah isna uu ku waayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa sidoo kale sidaas oo kale la wareegaya xilka isaga ayaa mas'uuliyadii baarlamaanka shir gudoonkeedii iyo wixii baarlamaanka waajibaadkiisa fulinaya sidaa ayaa si lamid ah haddii saddexdooda ay istiqaalo ay keenaan ninka ugu da'da weyn ee baarlamaanka inay doortaan xildhibaanada ayaa wuxuu ugu shir gudoominayaa ilaa markaasi laga helo hogaankii baarlamaanka oo ka kooban gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo gudoomiye ku-xigeen labaad iskumana xirna gudoomiyaha hadduu asaga uu ka baxo meesha in gudoomiye ku-xigeenkana uu ka baxo mid waliba goonihiisa ayaa loo soo doortay mid walibana wuxuu leeyahay waajibaadkiisa qofka kale ee isaga saameyn ku yeelanayana ma jirto meesha tan gudoomiyaha baarlamaanka sharciyan maanta qaabka uu ku tagay ee madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay waa iscasilaad uu iscasilay isaga ma aha mid gudoonkii dhacay uu ku baxay horta xilli dhamaaday iyo xilli waa dhamaaday ma jirto meeshan dawo oo expire maartay noqonayso ama maartay sidii xildhibaan mawlid maxaan uu sheegay faynus gaas ka dhamaanayo meesha ma jirte nidaam baarlamaan oo heshiis Djibouti lagu soo maray caalamka uu og yahay dadkii heshiiska soo wada galay ee TFG ARS ay ka warqabaan marxaati galna dadkii ka ahaa ay yimideen ay micneeyeen ayaa meesha yaala hogaanka sare ee baarlamaanka waa la soo dooranaya ayaa buran uu ka yeelay hadii 5 sano ay u dhamaato 5 sano markii ay dhamaatay ka hor wixii isbedela ay yimid sidii ay ku timid in 2 sano lagu kordhiyo ayaa waxa fasiray ergeygii Djibouti markuu yimid sidii uu ahaa iyo ragii wax ka waday laftirkooda heshiiska ama TFG noqoto ARS marka waxaana mar waliba duruufta isku si ay u taabanaysay oo dadka hogaanka sare ee baarlamaanka doortay ay yihiin ay ku yimid codka xildhibaanada gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha intaasi waxay ku wada jiraan hal ma aragtay nakaba ma gartay mar haddii 5 sano iyada ay dhamaato markii hore 5 sano markii TFG dhanba ay u egtahay la yiri muddadii kordhinta ahayd gentleman's agreement 8 bilood ka hor markuu madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iscajilay ayaa wixii lagu wada heshiiyay ayaa waxay noqdeen in gudoonkii baarlamaanka iyo madaxweynihiiba iyo baarlamaankii xubnihii hore ee 5 sano TFG dhamaysanay iyo ARS 275 soo galayso 8 biloodna ka qaadanayso ma aragtay heshiiska 2 sanana markii ay dhamaato 5 sano kadib ayagana 7 sano iskugu buuxsamayso intaba dawladda federaalka meel gaarka oo aan